kusoo dhawaada warka kale sama TV qodobadaan idin hayna waxaa kamid ah xasuuq ka dhacay dalka Itoobiya 1500 oo qof ay dhimashadu gaartay sida la leeyahay dadka la dilay awood cusub ay la soo baxeen kooxda Oromada maxay saameyn ku yeelan kartaa xukuumadda Abiy Ahmed hogaaminayo qodobada kale waxaa kamid ah wafdi ka socda dalka Ruushka oo gaaray caasimadda Iran ee Tehran kulamada socda ayaanu eegi doonaa qodobada waxaa ku jiri doona 20 dadka loo yaqaan Masayda oo maxkamad xukun ku riday dalka Tansaaniya kadib ficil naxdin leh ay sameeyeen wararkii ugu dambeeyay ee dhulgariirkii ku dhuftay dalka Afghanistan waxaa la soo sheegay in dhimashada ay korortay qaybaha dambana waxaanu eegi doonaa 3 dhalinyaro ah oo lagu xiray dalka Masar kadib markii ay hees iyo muusig ku dhex cayaareen goob masjid dadku ku cibaadaystaan ugu horeyn hadda nagu cusub tahay subscribe dheh oo hel dhacdooyinka dalka qaaradda iyo deegaankaagaba muuqaalka Lexar oo si sheergaray hadii aad awoodo waad mahadsantahay aan ku bilowno wararka ka imaanay dalka Itoobiya ayaa sheegay in dhimashada ay gaartay 1500 oo qof oo la leeyahay waxa lagu dilay gudaha gobolka Oromiya maleeshiyada la magac baxday OLA ee Oroma Liberation Alliance iyo kooxda kale ee OLF ee isla Oromada qaybtooda xoreynta kamidka waxay sheegeen in ay si kordhinayaan weerarada ka dhanka ciidamada Itoobiya tirada dadka ku dhintay xasuuqii Wologa ee galbeedka Itoobiya ayaa kor u dhaaftay 1500 oo qof dhacdooyinka naxdinta leh waxaa kamid ah in 12 qof dadkaasi laayay ay isku qoys ahaayeen maleeshiyaad ka tirsan jabhadda Oromada ee OLF ayaa waxay sheegeen in dad goobjoogayaal ay ka dambeeyeen xasuuqaasi ciidamada OLF ee dawladda Itoobiya ugu yeerto Shaane ayaa lagu arkay muuqaal guri iyagoo u galaya oo ku dilay qoomiyadda Amxaarada Sabtidii degmada Kimbi ee gobolka Wolega ee galbeedka Itoobiya sida ay dad goobjoogayaal ay sheegeen oo la hadlay wakaaladda wararka ee Aba goobjoogayaal koolan aruurinta iyo aaska meydadka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen dalka Itoobiya in dadka dhintay ay u badan yihiin haween iyo caruur la xasuuqay arrinta naxdinta leh ayaa u muuqata mid la soo agaasimay oo lagu bartilmaameeyay guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanka Tolle oo ka tirsan degmada Kimbi waxaana ay saameyn xoogan ku yeelatay qoysaska qaar iyadoo qaar badan ay xubno badan waayeen oo weerarkaasi lagu dilay waxa magaalada Wolega la yiraahdo ka dhacay xasuuqiyo soo laabtay isla markaana la beegsaday qoomiyadda Amxaarada tan iyo markii Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha uu ka noqday dalka Itoobiya kadib iscasilaadii ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn sanadkii 2018 bishii Maarso muuqaalo aan la xaqiijin ayaa muujinaya tuulada ay weerareen kooxaha hubeysan ee Oromada ah isla markaana la arkay kooxda oo weerarka ka geysanaysa guri iyagoo u galaya oo dadka mararka qaarkood si bareer u tooganaya waa dadka ka soo jeeda qoomiyadda Amxaarada ee degan degmada Kimbi hadda xubno ka tirsan ciidamada difaaca ee Itoobiya ayaa waxa loo daadgureeyay halkaas balse sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ma aysan isku dayin in ay bacsadaan maleeshiyaadka Oromada mana aysan u gargaar fidin dhibanayaasha qoysaskooda la laayay dadkii ka badbaaday weerarka waxay sheegeen in loo weeraray oo ay kaliya sabab la xiriira qoomiyadda Amxaarada ay yihiin la ajligeed loo beegsaday balse waxay tilmaameen in weli cabsida ay taagan tahay ciidamada Itoobiya ayaa hadda waxay isku dayayaan xakameynta dhacdooyin kale oo argagax leh oo ka dhaca deegaanadaas وهاجاك بالمركن هديان ويجنو ودن كإيران وفد كسعودة دل كروشكا يا جاري حكومة كريملينكا يا وحي وسير كذا الرماه الدبدة سرجي لافروف وتجي مجلة طهران عاصمة إيران وحنا ولا كل مي دقي سودن كإيران حسين عبد اللهيين وحنا كلن كاس نحمر إلا بدو وسير الرماه الدبدة إيران يولبا روشكا أي قميص ترمانتا أهيد كأرن صدين الرماه حريرك يولبا سيدي اللوحو جلها مركز كدب وحا وسير كأرمها قارجي دلك روشكا سرجي لافروف ولا كل مي مدحوينها ودن كإيران ninkii yiraahdo Ibrahim Raisi socdaalkan oo hal maalin qaadanaya ayaa la sheegay kadib inuu dib ugu laaban doono Ruushka iyada oo kulankaas madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ay isku soo hadal qaadeen xiriirka u dhaxeeya labada dal ee ku dhisan ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaale in la sii kordhiyo Ruushka ayaa wajahaya xayiraadiye kala duwan oo reer galbeedku ay saareen tan iyo duulaankii uu ku qaaday bishii Febraayo ee sanadkan dalka Ukraine وهجاك بالمركن دلك تنسانيا 20 dadka loo yaqaan Masayda ayaa maxkamad ay xukun ku riday kadib markii la sheegay in dadkaasi ay dhawaan
dileen askari ka tirsanaa ciidamada booliiska Tansaaniya. Masaydan oo iyagu ah dad degan labada dal ee Tansaaniya iyo waliba Kenya ayaa waxa ay kumanaan ka mid ah banaanbaxyo ay dhigayeen dhawaan ay rabshadihii ka dhashay ciidamada ammaanka ee dalka Tansaaniya isku dayeen in ay dadkaasi xakameeyaan, balse fallaar mariid marsanayd ayaa waxaa la tilmaamay in ay ku liifeen sidaasna ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada booliiska ee howlgalkaasi sameynayay. sharciyaqaano ka tirsan kuwa maxkamadaha waxay sheegeen iyo waliba u doodayaasha hay'adda xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch ee fadhigeedu yahay Tansaaniya in dadkaasi xukunka lagu riday loo haystay ilaa 9kii bishan June dilka askarigaasi ay u geysteen. dadka Masayda ah ayaa kuwo inta badan ah dadka dega baadiyaha wadamada Tansaaniya iyo waliba Kenya. waa dad la nool xayawaanaadka sida shabeelka iyo waliba libaaxa. waxa ay yihiin kuwa dhaqanno iyo caadooyin u gaar ah iska leh marka la joogo labadaasi dal ee bariga Afrika dhaca. waa tahay daawadayaal Kalsame TV ayaad weli la socotaane, bal markana haddii aanu eegno dhulgariirkii ku dhuftay dalka Afghanistan ayaa la soo warinayaa in dhimashadu ay gaartay 1500 oo qofood, iyada oo wararku ay tilmaamayaan 2000 oo qof dadka badan inay dhaawacyo ay soo gaareen. wakaaladda wararka ee dalka Afghanistan ee Bakhtar ayaa tabisay warkan. gobolka Bakhtiya iyo magaalada Qost ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee dadka ay ku leedeen. hay'adda maareynta musiibooyinka ee dalka Afghanistan waxay sheegtay in weli laga cabsi qabo tirada in ay kordhi karto 6.1 qalabka Richter scale-ka loo yaqaano ee dhulgariirada lagu cabiro ayaana dhulgariir intaas leeg uu garaacay 51 kilomitir qiyaastii bad ku fadhiya ayaana dhulgariirkaasi uu saameeyay. kooxaha samata bixinta waxay sheegeen in weli ay baadi goob ugu jiraan dad laga yaabay in dhismayaasha dumay ay weli ku hoos jiraan, tiradoodana aan rasmi loo ogeyn. 2015 7 sano ka hor sidaan oo kale boqolaal qofood ayaa Afghanistan iyo waliba Pakistan deegaanada xuduudda ay wadaagaan dhulgariir ku dhuftay. waxa ay ku nafwaayeen boqolaal qofood iyada oo dhulgariirkii shalay Arbacadii ku dhuftay dalka Afghanistan koonfurta qaaradda Aasiya dhaca la soo sheegaya midkii ugu qasaaraha badnaa waayadan ee halkaasi ku dhuftay inuu ahaa. qodobka ugu dambeeya ayaan markana daawadayaal eegaynaa ee Kalsame TV. 3 dhalinyaro ah ayaa loo xiray in ay muusig iyo heesa isku duubeen muuqaal ay ka sameeyeen baraha bulshada ay ku faafiyeen dalka Masar. dhacdadan ayaa waxaa soo dhaweeyay ee xariga loo geystay dhalinyaradaas qaar ka mid ah waalidiinta, iyagoo sheegay in ficiladan aana ahayn mid u wanaagsan faafinta diinta Islaamka. degmada Al-Marag la yiraahdo ayaa masjidka ay ku soo dhex duubeen heestaasi laga arkayay muuqaalka bilowgii bishan. ayaa sidaas oo kale sargaal ka tirsan ciidamada ayaa waxa uu sheegay in la xiray dhalinyaro ficilo aan wanaagsanayn dhaqanka iyo diinta Islaamkana ku xadgudbayay sameeyay. Masar waxay ka mid tahay meelaha aadka loo xakameeyo dadka TikTok isticmaala. gabdho muuqaalo surwaalo iyagoo wata iska duubay ayaa sidaas oo kale dhawaan xabsiga loo taxaabay maadaama ay qalad tahay shuruucda diinta Islaamkana ay ku xadgudbeen gabdhahaasi sida la ogaaday. guud ahaan daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna wararka aad kala socoteen Kalsame TV. intaan wararkaan oo kale dib isku arki doonno. nabadgelyo.